maxaad kala socotaa in fanaanka caanka ah ee Cawaale Aadan uu wajahayo maxkamadeyn? haddaba maxay tahay sababta? si aad wax badan u ogaato ila sii joog ilaa iyo dhamaadka muuqaalkan adigoo sidoo kale like saaraya una sii share gareynaya saaxiibadaada kale ee Facebook. wayna kuu furan tahay ku soo biirista page-kaygan Cabdulqaadir Xuseen Canshuur. waad ku mahadsan tahay tixgelinta codsiyada. أبن سيدي وعوالي قبضي انت لاقو قداش دقيقة كوكارن كنت سيدي كنتنسن كنت سيدي كنتنسن كنت سيدي كنتنسن كنت سيدي كنتنسن baraha bulshada Soomaalida waxaa qabsaday hadalhaynta fanaanka reer Jabuuti ee Cawaale Aadan iyo xaaskiisa cusub Mrs. Xiis iyo dhacdada shakiga kala taga xaaskiisii hore iyo cidda gacanta ku haysa koonadiisa baraha bulshada ee fariimaha lidiga ah ku soo qoraysa, taasoo sidoo kale si xigmadeysan uu kaga hadlay fanaanka Cawaale Aadan. qisooyinka jacaylka inta badan kuma dhamaadaan farxad, yeelkeedii hadba waxay ku xiran tahay labada shaqsi ee xiriirka ka dhaxeeya doonistooda in maalin noloshu ay mideyso. Cawaale Aadan oo ah fanaan saameyn togan ku dhaxlay fanka, heesihiisuna aad ay u jecel yihiin kuwa ku jira xeyndaabka jacaylka, iyo fanaanada codka halaasiga leh ee Mrs. Xiis ayaa meherkoodu ka dhacay caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga. labadan hoobal waxay leeyihiin qiso dheer oo jacayl oo aan muuqaalkan aan ku soo koobi karin. xiriirada jacayl inta badan kuma dhamaadaan farxad, balse tani waxay u noqotay mid u hirgashay oo guul ugu dhamaatay fanaaniintan xiriirkooda. inkastoo xilligan wiilasha iyo gabdhaha heesaaga ah inay isdoortaan ay tahay mid aan nagu cusbayn, haddana fanaaniinta qaar ayaa bog cusub u faraya fanaaniinta kale, taa oo ah in qaarkood ay noqdeen laba xaaslayaal. xujadan oo ah mid ku adag fanaaniinta qaar sida fanaan Dayaxda Nuurshe. Cawaale Aadan ayaa bareejiyay fanaanka reer Jigjiga ee Xariir Axmed, kaas oo xaas labaad guursaday. laakiin dadka qaar ayaa isweydiinaya waxa soo dedejiyay caruuska fanaaniintan Cawaale Aadan iyo Mrs. Xiis. laakiin dadka badi ma wada oga in xiriir jacayl oo malab ah waqti dheer ay wada lahaayeen fanaaniintan Cawaale iyo Mrs. Xiis. sirta kaliya ay la soo muuqdeen fanaaniintan Mrs. Xiis iyo Cawaale Aadan waa inuu Cawaale Aadan go'aansaday inuu ka baxo xeyndaabka halxaaslayaasha oo uu gudoomiyaha u yahay fanaan Dayaxda Nuurshe. guryahan gob hantideega lootahay waxaad kalay agaada kalgacalkood la ogasiinta udamaka xadana gudbooli anacabna geed ku xidha ku kiija ooyuu galda